Hello asxaabtayda qaaliga kusoo dhawaada channelkayga maanta waxaan ila wadaagi doonaa qado fudud oo aad u macaan haddaad channelkayga ku cusub tahay please subscribe ka saar haddaad rabtid mar walba inaad la socotid channelkayga subscribe ka dhankiisa gambaleelka ku yaala riix si aad mar walba videogayga cusub aad u heshid hadda sidaa u jeediin baastada ayaan dabka sii saaranayaa intee baastada ii kareyso qudaarta ayaan sii jaranayaa qudaarta waxaan u sii jaranayaa waxay tahay hawsha ayay ii fududeynaysaa hadhow markaan suugadayda karsanayo hadhow suugada ma iga gubanayso wixii aan u baahnayo dhan aan ku dari lahayo dhan waan haystaa hadhow orod ma galayo insha Allah maanta suugadayda tomato sauce ayaan isticmaali doonaa cherry tomato-dana u jeediin anaa iska jeclaystay inaan ku darsado laakiin qasab maaha inaad ku dartid baastadeeni way noo kartay sida u jeedin si fiican oo furfuran ayay u kartay aad bay muhiim u tahay inay baastada ka jilcin baasta gariiraysa oo inaba caadi ah inaad ka qaadid aad iyo aad bay u fiican tahay suugadeeni ayaan karsanaynaa halkan sida u jeedin hilibkeeni ground chickenka ayaan hayaa insha Allah suugadii ayaan bilaabayaa in yaroo saliid ah ayaan bardaawada ku shubtay hilibkeeni aan soo qaaday bardaawada ayaan hilibkii ku shubay hadda xoogaa yar aan isku waday walaaqayaa in yaroo cusbo ah iyo in yar oo black pepper ah inta afkaaga qaadayso ayaa ku darsanaysaa waan isku walaaqayaa si fiican ayaan isku dhex gelinayaa sidaad u jeediin hadhow hilibka biyo ayuu dhali doonaa biyahaas markuu wada gursado ee saliidda la soo hadho waxa waaye hilibkaaga diyaar waaye si fiican ayuu u koray hilibkan wax badan karistiisa ma qaadanayso hadda sidaad u jeediin waxaan ku daray in yaroo toon ah aan soo tumay hadda si fiican ayaan iskugu walaaqayaa in yar markay intaas ku karto waxaan soo qaadan doonaa tomato sauce-keygii ayaan ku dari doonaa sidaad u jeediin sauce-kii ayaan ku daray si fiican ayaan isugu walaaqayaa dabka hadda xoogaa in medium aan u geyn doonaa si fiican hayga hadda u geeysa suugadaada way kaa duulduuli doontaa hadda saa u jeed intii yareedo tomato-dan waan ku daray sidaad u jeediin seasoning-kan ku dari doono intaan waaye description-ka ayaan kusoo qori doonaa inta waxay ka kooban yihiin hadda sidaad u jeediin si fiican yuu suugadii isugu kartay dabkeyga low medium aan u geyn doonaa hadda seasoning-keyga ayaan ku darsaday insha Allah intaas si fiican inay isugu kartaan rabaa si fiican seasoning-ka suugada si fiican u gasho insha Allah waan dabooli doonaa hadda sidaad aragtiin waxaan ku darayaa hal xabo oo maraq digaag ah dabka low baan hadda geeyay intaas ayaan isku walaaqayaa si fiican insha Allah suugadeeni xoogaa ayay noo kartay hadda waxaan ku daray oo kale intii yareed oo basasha aan soo jartay iyo gabalkii maxaa la dhahay barbarooniga ahaa si fiican ayaa isugu walaaqaysaa dabka hadda inaan ka yara gaabiyo waayo sidaad u jeediin suugadeena aad bay u karkaraysaa hadhow way kugu duulduuli doontaa soo marka dabka xoogaa loo ogeey hadda waxaan ku daray intii yareed oo kamsar caleenta ahayd kamsar caleenta waxaan jeclahay badanaa inaan ugu dambeysiiyo siday cuntada caraf ooga dhigto si fiican suugo macaan oo caraf badan ay kugu noqoto hadda insha Allah waan dabooli doonaa looga ayaan geynayaa ilaa 10 daqiiqo si fiican suugada siday isugu karto sidaad u jeediin suugadeeni way kartay waa diyaar si fiican ayay u kartay carafta haddaad urin kartiin inaba caadi maaha suugo macaan oo aad iyo aad u carafayso ayay ii noqotay hadda cuntadeeni ayaan diyaarsanaynaa saxan ayaa soo qaadanaysaa in yaroo baasta ayaa ku ridanaysaa suugadeeni sidaa u jeediin korka ayaa in yar oo igu filan ayaan korka ka saaray hadda xabad moos ayaan soo qaaday cuntadayda aad ayaan u jeclahay inaan mooska ku cuno sidaad u jeediin in laba gobol oo liin ah ayaan dhanka ka saaray aan ku qurxinayaa hadda korka waxaan kaga daadiyay Parsley Flakes haddana korka waxaan kaga daadin doonaa oo kale cheese oo budo ah
grated Parmesan cheese la dhaho. sidaad u jeedin cuntadeena waa diyaar inaba caadi ma aha.